الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أنبياء المرسلين وزيرك وزارة gaashaandhigga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda cadaaladda gudoomiyaha xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga kulmiye la taliyaha madaxweynaha arrimaha ammaanka taliyaashii hore ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Sareeye Gaas Ismaaciil Shaqale Cabdi Samed taliyaasha ciidamada qaranka kala duwan taliyaha ciidanka asluubta taliyaha ciidanka booliska taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha taliyaha ciidanka socdaalka generaalada ciidamada kala duwan saraakiisha sarsare saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahadoo dhan waxa iska leh allah subxaanahu wa tacaala ay noo ogolaaday inaynu iskugu nimaadno xafladan sharfan aynu ku kala wareejinayno taliyihii hore ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo taliyaha cusub mar labaad waxa mahad iska leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ii ogolaaday inaan hogaamiyo mid ka mid ah tirarka ugu culus ee ammaanka Jamhuuriyadda Somaliland mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa taliyihii hore ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Sareeye Gaas Ismaaciil Taani oo aan ka marakacayo inuu tacab badan geliyay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland muddadii uu xilka hayay oo kow ka tahay inuu abuuray jiil cusub oo hanan kara kala wareegi kara mas'uuliyaddii uu isagu hayay oo aan ahayn wax fudud way yar tahay Afrika inuu hogaamiye abuuro hogaamiyaal ka dambeeya waxaan uga mahadnaqayaa taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Ismaaciil Taani inuu abuuray jiil cusub oo maanta ciidanka qaranka mas'uuliyad kaste oo loo xil saaro ka soo bixi kara mudanayaaliye marweyn ciidanka qaranku waa tiirka ugu muhiimsan jiritaanka qarankeena waxaana la gaaray xilligii aynu xoojin lahayn awoodiisa tayadiisa iyo sharaftiisa waxa sal u noqon doona hogaamintayda muddada aan xilka hayo cadaalad wada tashi iyo isku wadid waayeelka iyo dhalinyarada ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland warwar kama qabo inaynu dhisi doono ciidan tayo leh haddii aynu isku darno waayo aragnimada iyo aqoonta dhalinyarada ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland qorshe hadal badan iima yaalo waxaan taaban doonaa qorshayaasha dhow ee aynu ka leenahay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland sida ku cad siyaasadda uu garwadeynka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ahna taliyaha ciidamada qalabka sida mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi si loo helo ciidan ka turjumi kara mandaqada aynu ku noolahay iyo khataraha aynu gadaaman waxa laga maarmaana in kor loo qaado kow nolosha xubnaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxa tiirka ugu weyn u noqon doona in la dhiso dadka in badan baynu Somaliland soo dhismayaal qalab laakiin maanta waa in loo guntadaa in la dhiso shakhsiga markaynu shakhsiga dhisno ayay dhismayaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaynu adkeyn doonaa discipliinka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaynu casriyeyn doonaa inta awoodeenu gaarsiino qalabka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland bixinta adeeg caafimaad tayo sare leh waxaanu xoojin doonaa iskaashiga aan la leenahay wadamada aynu jaarka nahay aynu leenahay ammaanka xagga dhinaca ammaanka inta aanu xilka hayno waxaanu diyaarin doonaa habraacyada kala duwan ee maamulka lagu hufayo si loo helo maamul hufan oo ay ka mid tahay maamulada hawlgallada maamulka lacagta iibka shaqaalaysiinta iyo tababarada waxaanu insha Allah si degdeg ah u fulin doonaa amarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee ahaa in ciidanka qaranka lagu tiro koobo muddo kooban si loo helo tiro sugan oo hawlgali karta taasi waxay faa'iido u yeelan doontaa maamulka hufan iyo dib u dhiska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo loo kala saari doono ciidanka qaranka maxaa hawlgali kara maxaan hawlgali karin taasi waxay u sahli doontaa ciidanka in si hufan loo maamulo habka nidaamka dalacsiinta habka hawlgabyada iyo dhammaan wixii maamul ee ku tacalluqa ciidanka taasna insha Allah sida ugu dhaqsaha badan ajandahayaga ugu horeeya wuxuu noqon doonaa inaanu fulino amarkaas ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa
xubnaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xaasaskooda nafhurnimadii ay u sameeyeen muddadii ay muxuu ahaay u shaqeynayeen qarankooda waxaanu ballan qaadayaa aniga oo ka wakiila madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna taliyaha ciidamada qalabka sida in la daryeeli doono oo qaranku mudnaan gaar ah siin doono dhammaan xubnaha ciidanka qaranka iyo xaasaskoodaba intii awoodda qaranku uu noqdo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.